بسم الله الحمد لله. ما أنت واحد جونا هذانا أكله أو كيالو جوغلة لو يقانو جنب لو أجاسو عيد مدة ديان كيو عيد ما كترسن دولة فترة كصوماليا قاصان ميليتريا وتدا أفراد ورك الله يتمنات ما أنت قاعد تقول ديان وندمبين waxaan ugu nimid meeshaan gaari ay ugu tala galeen inay nagu dhakraan ama ay nagu khiyaanaan gaarigaas markaan isugu nimaado in ay noo taabtaan miina ku shaqeyso nooca la yiraahdo rumuudka annaguna waa ka warqabnay waxaan sameynay markii aan soo gaarnay agagaarka gaariga waxaan sameynay isku weeran ka qabanay inta uu rumuudku gaari karo miinada waa lala yaqaanaa xabaddana waa lala yaqaanaa nooc walbay u shaqeeyaan annaguna waa naqaanaa waan ogeynay wax walbo ay samayn karaan gaariga markii aan aragnay waxaan qabanay intii uu rumuudku gaari karo ama anteenadiisu ay soo gaari karto ayaan ciidamo ku wareejinay dabadeedna waxaan iska furnay miinadii miinada nooca loo yaqaano TNT-da oo lagu cabeeyo oo farsameeska oo lagu cabeeyo nooc walba haddaad aag ku cabayso haddaad bir ku cabayso hadda ay waxay ku cabeeyeen birtaas taangiga ay ku cabeeyeen waxayna ka dhigaan nooca laga dhigo rumuudka ama rumuudka laga hago waxay sameeyaan marka waxay noo geliyeen gaariga shirkiisa noo geliyeen si haddaan nimaado on gaarigaba u sii maahayno ay rumuudka noo taabtaan anaguna markaas aan hawada la aadno laakiin ilaahay kama dhigin alxamdulilah awalan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadda iska leh marka labaadna waxaan uga mahad celinayaa ciidamada deegaanka ama macaawisleyda oo qabsaday waajibaadkoodii ugu dambeyn waa ka furfurna gaariga waa u jeedaan waa gaari la isticmaali karo waa gaarida loo yaqaano nooca laangaruusalada waaye laangaruusal way isugu wada tagaan magacooda laangaruusal isugu wada tagaa waa baraado marka waxay samaynayaan meel walbo ay jabaan ay ku jabaan inay khiyaano kala sameeyaan waa hadda waa khiyaanadii ugu dambaysa waa amba tabar darro waay waa jabeen markay jabeen waxay dan mudeen in ay rumuud miina ah noogu qariyaan sidaasna aan annagu ku baaba'no ilaahayna ma dhihin annaguna ka yeeli ma doonno haddana meel walbo ay khiyaano ku sameeyaan waa